بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شيكada afariyo tobnaad شيكada shaniyo tobnaad الذئب والغراب وابن آوى والجمل ورابع تكي ديدر iyo awr waaba libaax ku noolaa kayn weyn oo ku agtaal wado safraha iyo dadku maro wuxuuna lahaa saddex saaxiib oo kala dhurwaa dhidar iyo tuke. haddaba dad ganacsata ayaa soo maray wadadii waxaana kaga habeensaday awr wayna waayeen oo waa isaga tageen. awrkiina wuxuu hore isaga qaaday kayntii ilaa uu uga tegay xaruntii libaaxu deganaa. markuu libaaxii u tegay ayuu weydiiyey oo yiri libaaxii war xagee ka timid. awrkii wuxuu libaaxii dabada u qabtay sheekadiisii oo dhammaystiran. libaaxii ayaa mar kale weydiiyey oo yiri maxaan kuu qabtaa oo aad iiga baahan tahay. awrkii ayaa yiri waxaan rabaa inaan kula joogo oo kula saaxiib noqdo. libaaxii ayaa yiri haddii aad rabto saaxiibtinimo ku soo dhawow nabadgelyo iyo barwaaqo. awrkii wuxuu la joogay libaaxii muddo ilaa laga soo gaaray in maalin libaaxii uu raadsaday ugaarsi oo uu la kulmay maroodi ayna dagaalameen dagaal daran oo kulul kaasoo libaaxii u geystay dhaawacyo ba'an oo waaweyn oo dhiigu shalxleeyay lafuhuna meelo badan ka jabeen. jabniinka oo foolasha maroodigu geysteen wuxuuna libaaxii iska hoos fadhiistay godkiisii isaga oo tahli waayay inuu ugaarsado. dhulwaagii dhidarkii iyo tukihii waxay joogeen ayaamo iyagoon waxba cunin oo sooman waayo waxay cuni jireen waxa uu libaaxu u hambeeyo. tiina ma hayaan waxay deris la noqdeen gaajo iyo macaluul. arrintaa oo libaaxu ka gartay dushooda oo uu markaa ku yidhi orda oo dadaal sameeya oo waxaad cuntaan doonta. waxayna yidhaahdeen warwarkayagu ma aha naftayada ee waxaan aragnaa dhibka haysta boqorkayaga wax aan siinana ma haysanno mana heli karo. libaaxii ayaa yidhi ma eegan karo idinkoo gaajoonaya waayo waxaa igu dheer saaxiibtinimadiinna ee orda oo wax raadiya. waxaaba la arkaa inaad wax soo heshaan oo aad anna wax iiga keentaan taasoo inoo wanaagsan dhammaantiin. waxaa israacay oo dibadda godkii uga wada baxay dhurwaagii dhidarkii iyo tukihii oo waxay iswada taageen meel iyagoo tashanaya. waxayna yidhaahdeen war maxaa inooga 15 awrkan un la wadaagna isagu ma isagaaba inala tala ah cawskiisuu cunayaa oo gaajo maba hayso. haddii libaaxu dhinto iyo haddii kale ma kala jecla oo hilibka ma cunee inala aragti iyo fekerba maaha. maynu ku qalqaalino libaaxa subagiisa haynaga hiraabshee. dhidarkii ayaa yidhi waxaa libaaxu ma maqli karo waayo awrka wuxuu siiyey magangeliyo wuxuuna ka dhigay mid dhiiggiisu xaaraan yahay. tukihii ayaa yidhi anaa libaaxa arrinta kala soo hadlayee idinku meeshiinna sii jooga. tukihii wuxuu aaday libaaxii markuu u soo galay oo uu arkayba wuxuu weydiiyey wax ma soo hesheen. tukihii ayaa yidhi waxaa dadaala nin xoog leh waxaana wax arka mid dhaaya leh. annaguse sidii aad nooga xanuunsatay waxaa naga dhacay indhihii oo gaajo darteed waxba ma arki karro. waxaannu si hellay aragti waana isku waafaqnay oo waa isku afgarannay. haddii aad adna nagu raacdo waa dhergaynaa oo waa badhaadhaysanaynaa. libaaxii ayaa hanqalka la soo kacay oo wuxuu yidhi haye waa maxay arrintaasi. tukihii ayaa yidhi awrkan caws cunaha ah oo ina dhex jooga isagoo aan wax faa'iida inoo lahayn. libaaxii ayaa xanaaqay oo wuxuu yidhi war hooge maxaa kaa hadal xun oo kaa fikrad xun oo kaa ballan furid badan oo kaa naxariis daran. ma ihi anigu mid waxaa loola yimaado oo loo keeno oo aqbalaya sheekooyinka caynka ah. miyaadan ogayn inaan awrka magangelyo siiyey? miyaanay ku soo gaadhin inaan mid wax sadaqadaystay wax lagu sadaqadaysan haba weynaatee waxaaba kad weyn inaad naf baqaysa nabadgelyo siiso iyo inaad banaysato dhiiggiisa si micno darro ah. anigoo awrka siiyey magangeliyo mana ihi mid ballanta kaga baxaya awrka. tukihii ayaa yidhi anigu si wanaagsan ayaan u garanayaa waxa boqorku sheegay balse naf keligeed ihi waxay badbaadisaa qoys dhan oo meel ku wada nool. qoyskaasina wuxuu badbaadiyaa qabiilo dhan qabiiladaasina waxay badbaadisaa waddan dhan ama magaalo dhan. magaalada ama waddankaasi wuxuu badbaadiyaa boqor haddii ay boqorka
arrintu ku xumaato waxaanna samaynaynaa wax uu boqorku kaga xilbuxo ballantii oo awrka siiyey boqorka lagu dhibaatayn maayo loogamana baahna inuu amar bixiyo laakiin waxaan maleegaynaa shirqool sirtaa oo boqorka u buuxinaysa ballanqaadkiisii misna aynu guul ku gaadhayno intaa markuu yidhi ayaa libaaxii aamusay oo arrintaa u dhool la caddeeyey tukihii ayaa u yimid saaxiibadii oo wuxuu ku yidhi anigu waan la hadlay libaaxii waxaana u sheegay waxaa iyo waxaa hadalkii ayuu u faahfaahshay waxay ku yidhaahdeen oo haddaba waa maxay khiyaamada aan awrka ku cuni karnaa haddii libaaxii diiday inuu amar ku bixiyo in awrka la soo qabto oo la dilo si loo cuno waxay saaxiibadii tukihii ku yidhaahdeen annagu waxba garan maynee bal adigu inoo tali waa kugu raacaynaaye tukihii ayaa yidhi fikraddaydu waa inaan awrka u yeedhno oo ka sheekayno xaalka xun ee libaaxu ku sugan yahay ee gaajo iyo dhib ah oo aan wada murugoonno oo nidhaahno wallaahi wax badan oo wanaag ah ayuu inoo sameeyey haddii waxa ku dhacay ay mid inaga mid ah ku dhici lahaayeen wuxuun ayuu samayn lahaa ee sidaa aan yeellay ma yeeleen waxaynu samaynay saaxiibtinimo xumo iyo abaalgud la'aan ina keena aan u tagnee oo uga abaal celinee wixii uu wanaag inoo sameeyey iyo inaan ku noolnahay dhib isna uu u baahan yahay abaalgudkeenna oo u sheegnee haddii aan wax kuu faa'iidayn karo waa kuula iman lahayn haddii aan taas ku guulaysan weynay ma aha inaan wax ku tarro waxaan kuu soo bandhigaynaa naftayada marka aan sidaa ku hadallo mid kasta oo inaga mid ihi ha yidhaahdo boqorow raalli ka noqon maayo in gaajo aad u dhimatee aniga i cun midkii sidaa yidhaahdaba inta kale ha tidhaahdo hadal u cudurdaaraya oo sheegaya inuu isagu kaga habboon yahay in boqorku cuno markaa kan loo cudurdaaray ha aamuso markaynu sidaa wada dhahno ayuu awrku ku dagmayaa hadalkeenna oo run u qaadanaya sidaa ayay ku heshiiyeen waxayna aadeen libaaxii iyadoo aan shirqoolkooda gaarka ah awrku waxba ka ogayn tukihii ayaa hadalkii bilaabay oo wuxuu yidhi boqor waad dhibban tahay waxaadna u baahan tahay waxaad isku baanato oo cunto sidaa daraaddeed waxaa wanaagsan inaan naftayda kuu hibeeyo waayo adiga daraaddaa ayaan ku noolahay adiga dabadaana nolol suuragal nooma noqonayso adigu haddii aad dhimatana intayada kalena kaa dambayn mayno oo nolol heli mayno markaa waxaan goostay inaad cunto boqor intaa markuu yidhi ayaa waxaa u jawaabay dhurwaagii iyo dhidarkii oo waxay yidhaahdeen war naga aamus adiga hadduu ku cuno muxuu kaa faa'iidayaa dhiig iyo uustoonna ma lihide dhidarkii ayaa soo booday oo yidhi anuu boqorku iga dhergayaa ee ha i cuno markaa ayaa dhurwaagii iyo tukihii iyo awrkii mar wada yidhaahdeen war adigu waad uur iyo ur xun tahay oo waad hilib xun tahay hilibkaaga xumaantiisa ayaa libaaxa boqorka ah dilaysa dhurwaagii ayaa yidhi anigu sidaa ma ihi ee boqorku ha i cuno tukihii dhidarkii iyo awrkii ayaa yidhi qofkii doonaya inuu naftiisa dilaa hilibkaaga ha cuno waayo waaba isagoo gowracato qaataye awrkii ayaa mooday hadduu isna sidooda oo kale yeelo inay meel uu ka baxo u samaynayaan oo ay saaxiibbo daacada yihiin libaaxana ka raalli ahaanayo sida uu iyagaba cudurdaarkoodii ugu raalli noqday markaasuu yidhi laakiin boqorow aniga hilibkaygu waa nadiif waana wax dhergin kara libaaxa dhurwaagii dhidarkii iyo tukihii ayaa yidhi waa runtaa waana kaa malaynaynay hadalkaa wanaagsan markaasay ku wada boodeen oo jeexjeexeen hilibkiisii oo cuneen faallo mahmahdan waxaa loogu mahmahaa ciddii aan ogayn oo ka xog la cadowgiisa inay si dhib yar ku siri karaan arrintaasina ma aha dabeecadaha dadka suuban waayo waxaa la faray inay istiraan oo feejignaadaan allana wuxuu qur-aanka ku yidhi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا خذوا حذرتكم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا kuwa xaqa rumeeyow qaata digtoonidiinna duulana idinkoo koox ah ama duula dhammaan sheekada 15 sheekada 16 السلحفاة والبدتين laba boolo
iyo diin. waxaa la yidhi laba shimbirood oo boolo ah iyo diin ayaa waa ku wada noolaa ilbiya leh, waxaana dhex maray saaxiibtinimo iyo derisnimo weyn. waxay meesha ku wada noolaadaan oo deris isjecel ahaadaanba waxaa waa dambe biyihii aad ugu yaraadeen ishii biyaha oo aad u xumaaday, waxayna boolooyinkii ku go'aan qaateen inay meesha isaga guuraan. waxayna inay guurayaan ku wargeliyeen saaxiibadood ay muddada badan meesha ku wada noolaayeen, waxayna ku yidhaahdeen waxaan doonaynaa inaan guuro, adigana waxaan ku leenahay nabadgelyo. diinkii wuxuu yidhi waad ogtihiinoo meesha biyihii waa ka gureen, anna kuma noolaan karo ee aan idin raaco oo idinla guuro. waxay ku yidhaahdeen waxaan kugu kaxayn karnaa oo aad nagu raaci kartaa adoo shuruudahan ka soo baxa. diinkii wuxuu yidhi oo waa maxay shuruudaha aan ka soo baxaya? waxay ku yidhaahdeen markaan ku qaadno haddii cidi ku aragto oo ku soo hadal qaado wax jawaab ah ha u celin. waxay tidhi haa, laakiin sidee ii qaadaysaan oo meeshaad ku socotaan ii geynaysaan? waxay yidhaahdeen waxaan soo qaadanaynaa qori oo labada dhinac ka qaniinaynaa, adiguna dhexda ayaad ka qaniinaysaa, sidaa ayaan kugu duulinaynaa. way oggolaatay oo waxaa la bilaabay duulimaadkii, laakiin waxaa la soo dulmaray dad oo dadkii ayaa arkay, waxayna qaarba qaar kale ku yidhaahdeen eega diinka duulaya shimbiraha dhexdooda, waa adduunyo gadoon, waa cajaa'ib aan weli hore loo arag. markay maqashay waxa dadku ku hadlayo ayay tidhi sankiinnu ha boodhoobo, oo waxay furtay iyadoo hadlaysa afkeedii, waanay soo dhacday oo dhulka ku dhacday waana dhimatay. faallo mahmaahdan waxaa loogu mahmahaa ciddii degdegta ama aan garan karin waxa danta u ah iyo waxa u dandarra ah. haba loo digo oo ha la waaniye. sheekada 11aad الذكي والمغفل. lillaahi iyo laqdabo. waxaa la yidhi laba nin oo mid hor alle yahay midna damaaci yahay ayaa xoolo isku darsaday, iyagoo wada socda oo dan ay leeyihiin u wada socda ayay heleen kiishad ay ku jirto 1,000 diinaar. waanay qaateen, waxayna go'aansadeen inay dib ugu noqdaan magaaladoodii. markii ay magaaladii u soo dhowaayeen ayaa lillaahigii yidhi lacagta inoo qaybi oo midkiinba ha qaato badhkiisa. damaacigii oo awalba goostay inuu keligii wada qaato ayaa yidhi maye isweydaarsiga gacmaha aadam warisadiisa ka fiicane midkiinba wax anfaca ha qaato, inta kalena aan meel ku aasanno oo marba wixii aan u baahanno aan kala soo baxno. lillaahigii waa oggolaaday, lacagtiina waxaa lagu aastay geed weyn hoostii, laakiin waxaa isla markiiba dib ugu soo noqday damaacigii oo lacagtii meeshii kala baxay. ayaan kadib ayuu u tegey daacaddii oo wuxuu ku yidhi inakeen aan lacagtii la soo baxnay. way israaceen oo meeshii qodeen si ay lacagta ula soo baxaan, balse waxba waa laga waayay meeshii. isla markiiba waxaa isxanaajiyey oo timaha iska rifay, laabtana iska garaacay damaacigii oo wuxuu yidhi war cayaarta naga dhaaf, adaa lacagtii dib ugu soo noqday oo la baxay. daacaddii wuxuu ku biimay dhaar iyo inuusan isagu la bixin lacagtii, balse waxay go'aansadeen inay garsoore kala saara u tagaan. qaadigii markuu warkoodii dhegaystay ayuu su'aalay cid markhaati ah oo idinla joogtay ma jirtay? damaacigii ayaa yidhi haa, waxaan leeyahay waxaa markhaati ka ah geedka aannu ku aasnay. arrintaa waxaa diiday garsoorihii diidma adag, wuxuuna amray hubanti iyo xaqiiqanimo, wuxuuna yidhi berri ayaan aadayaa geedka. damaacigii wuxuu u tegey aabbihii oo wuxuu uga warramay wixii dhacay, wuxuuna yidhi waxaan ku fekeray haddii aad igu raacdo waxaan haysannaa waxaan helay, waxaan kaloo ka helaynaa wax leeg waxaan haysanno oo daacadda la inoogu xukumayo. wuxuu yidhi oo waa maxay waxaasi? wuxuu uga warramay warkii oo dhan, wuxuuna yidhi waxaan kaa doonayaa aabbo inaad caawa dhaqaaqdo oo aad gasho geedka dhexdiisa, oo marka garsooruhu ku weydiiyo aad tidhaahdo doqonkaa qaatay lacagta. odaygii ayaa yidhi war aabbo, arrintaasi mid hagaagsan ma aha ee yaynan yeelin. kama uu daalin ilaa uu ka dhaadhiciyey oo uu ku raacay. haddaba markii uu garsoorihii yimid oo uu su'aalay ayaa waxaa jawaabay geedka gudihiisii oo wuxuu yidhi
doqonkaa lacagtii qaatay. garsoorihii ayaa la yaabay dhacdadan cajiibka ah, wuxuuna ku wareegay geedkii. wax uu ku arkayna ma ay jirin. wuxuuse amar ku bixiyey in xaaba la soo guro oo geedka la gubo. waana la gubay. markii qiiqii gudaha u dhacay oo gaadhay odaygii ayuu qayriyey, waana laga soo saaray iyadoo uu naf la caari yahay. garsoorihii wuxuu ciqaabay damaacigii iyo aabbihii, wuxuuna lacagtii faraha ka saaray daacaddii. waa meesha laga yidhaahdo daacadi ma hungowdo. damaacigiina wuxuu tuurta ku qaatay aabbihii oo meyd ah. faallo mahmaahdani waxay ku habboon tahay ciddii dadka dhibaataysa oo dhagarta, waxaana dib ugu noqda dhagartooda iyo sharkooda. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين كسبوا السيئات جزاء السيئة بمثلها وترحقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنهم أغشيت وجوههم غذع من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كوا كسبضي حمان أبالكود وحمان لمذا وحان هلي dulli wax eebbe ka ilaalinna ma jiro. waxaadna moodaa in lagu daboolay wejigooda goosin habeen oo mugdi ah. kuwaas waa asxaabta naarta ku waaraya.